maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag oo ay u helinayaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee heer qaran ayaa maanta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliland u qaybiyay ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe ee magaalada Ceerigaabo. munaasabadii qaybinta buugaagtan oo lagu daafuray dugsiga Chamber ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay maamulaha dugsiga Chamber Axmed Maxamed Faarax iyo madaxa kormeerka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi oo labadooduba ku dheeraaday muhiimadda buugaagta akhrisku u leedahay ardayda dugsiyada hoose dhexe. maanta waa maalin aad noogu qiimo badan aanu muddo sugaynay oo ayna soo gaadhay buugtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu noogu ballan qaaday in arday kasti ku heli doono bilaash 7 buug oo wax ka barto. waa maalin aanu u mahadnaqayno dawladda cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhabaysay ballanqaadkii ay noo ballan qaaday. waalid ahaan iyo arday ahaan iyo maamul ahaanna waxaanu nana ballan qaadaynaa buugaagtaasi in jiilba jiil ka dhaxli doono oo ay noqoto buug axfidan. waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka hadiyadii caruurta soo gaadhay buugaagta ahayd way noo timid waanu u qaybilaynaa. jasaakallah khayr. caruurtana waxaan leeyahay maadaama buugaagtii laynoo keenay waa inaynu ilaashanaa oo xafidannaa oo hagaajisannaa. dugsigan Chamber la yiraahdo fariin baan idin gaarsiinaya. dugsigan Chamber la yiraahdaa waa dugsi aad u weyn. ardayda joogta waa 2,080 arkay webaa jooga. fasalladu waa isdulsaar waxa weeyaan 18 fasal ayaa u dhisan halka kalaasyaduna ay yihiin 50 fasal ay yihiin oo ay soo 3 jeer noqdaan. waxaan ka codsanayaa wasaaradda waxbarashada agaasimaha wasiirka in dugsiga qalab aad buu ugu baahan yahay dhismayaal buu ugu baahan yahay horena waa fariintaas maamuluhu waana soo gaarsiiyay. marka codsigeeyagu waxa weeye fariinta in la ka gaarsiiyo wasaaradda waxbarashada iyo dawladda la ka gaarsiiyo. xubno ku hadlay afka waalidiinta iyo ardayda ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ka mahad celiyay buugaagta manhajka la soo gaarsiiyay gobolka Sanaag. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay afayeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibrahim Xaaji Xasan iyo madaxa tayeynta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Maxamed Salmaan Cumar oo ka warramay siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ee ku wajahan kobcinta aqoonta iyo waxbarashada. innagoo gudanayna mid ka mid ah waajibaadyada qarankeena caruurteena soo gaarsiinay si dheer u soo marnay buugaagtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu deeqay guud ahaan ardayda Soomaaliland ee dugsiyada hoose dhexe dalka dhigata. waxa wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada Cismaan Jaamac Aadan iyo Axmed Bakar Maxamed iyo wasiir ku-xigeenkii Maxamed Daahir bar ugu dardaareen in aanu dardaarankan soo gaarsiinana noqdo in arday kasta uu buugaagta xafito adkaysto daryeelo waalidkuna si wanaagsan u ilaaliyo si ilmaha dambe uu isaguna ugu manaafacaadso. dhammaanteen waxa maanta farxad inoo ah inaynu madashan isugu wada nimaadno innaga oo u taagan munaasabadda qaybinta buugaagta lacag la'aanta ah ee madaxweynaha Soomaaliland waqtigii ololaha doorashada uu ku galay ballanqaadkii uu sameeyay kaasoo maanta la fuliyay. waxbarashada tayada si loo helo tiirar badan baa saameyn ku leh macallinka saameyn ku leh maamulka dugsiga saameyn ku leh bi'adda iskuulka saameyn ku leh waxa kale oo iyaduna saameyn ku leh inuu ardaygu helo buugaagtii wax ka baran lahaa. marka mar haddii maanta arday waliba uu helay buuggii wax ku baran lahaa 7 maado ku baran lahaa 7 buugoo daabacan waxaan rajaynaynaa inay taasi wax weyn ka tari doonto tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland. gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Faarax oo munaasabadaasi ka hadlay isla madaxweynaha Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada uga mahad celiyay buugaagtan manhajka ay soo gaarsiiyeen gobolka Sanaag isagoo ardayda kula dardaarmay inay xafitaan buugaagtaasi. maanta waxaan noo sharafa inaanu maanta halka ku gudoomano haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag buugtii manhajka ee dugsiyada dhexe kuwaas oo ku deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu deeqay ardayda dugsiyada primary ama dugsiyada hoose dhexe. waxaan kaloo mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada madaxdeeda oo ugu horeeyo wasiirka waxbarashadu wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud
waalidiinta waxa la gudboon buugtan waa ammaano waxa la idinku adinka ayaa ka mas'uula marka laga tago maamulaha iyo macallimiinta dugsiga runtii waxaan rajayn doonaa inaad buugtaas ilaalin doontaan ka faa'iideysan doontaan ka wasaarad ahaan annaguna waan idinku kormeeri doonaa waanu ilaalin doonaa haddii alla yiraahdo si jiilba jiilka ka dambeeya uu uga sii dhaxlo waxaan leenahay xil baa inaga saaran waalidiinta ugu dambeyntiina maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa iyaguna dhankooda sheegay in talaabadan ay guul u soo hoyatay tahay qaranka Soomaaliland wasaaradda waxbarashada ardayda laftooda waa in buugaagtii aynu hanano waa inaynu ka faa'iidaysano waa inaynu waxbarashada ku dadaalno waa inaynu buugaagta xafidno runtii laga arki jirin buugaag dadkooda loo qaybiyo waa wax hadeer nagu soo kordhay nagu cusub inay helaan buugaagtii manhajka ardaygu dugsiyada dhexe koobaad ilaa 8 waa guul weeye waa hawl wanaagsan ardayda waxaan ku boorinayaa buugaagta ilaashada dugsigana waa la idin dhisayaa insha Allah oo waxa weeye waa ku dadaalayna sidii la idinku dhismaa harifaa la idinku kordhin lahaa Wayoonis Sheekh Axmed Universal TV Ceerigaabo